shantan arrin waxay ka dhigayaan qof bulshada uu ku dhex nool yahay ay jecel yihiin ixtiraamaan qadariyaan qodobka koobaad izhad fiima cinda annaas waxaad ka fogaataa ka dheeraataa faraha ka qaadaa waxa dadku ay leeyihiin waxa dadku ay haystaan xadiidka sahl ibn sacd as-saacidi nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa la weydiiyay ya rasuul allah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani allah wa ahabbani an-nas rasuulki allah waxaad tustaa amal hadii aan sameeyo ilaahay i jeclaanayo dadkuna ay jeclaanayaan bal fiiri nabigu talada uu siiyay wuxuu yiri nabigu izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas adduunyada ka zaahid ilaahay baa ku jeclaan dadka waxa agtooda yaalana ka zaahido faraha uga qaado ka fogow dadku way ku jeclaanayaan qodobka labaad la takun faduliyan ha noqonin qof dadka arimahooda gaarka ah gala ha weydiinin dadka mushaharka ay qaataan xagaad tagaysaa ha ku badin xageebaad ka timi ha ku badin wixii dadka u gaara ha gelin waana nabigu sallallahu alayhi wa sallam tawliyahay min hadith abi hurayra min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxa ku tusinaya oo kamida inuu qofkaasi ka tago wixii aan khusaynin wixii aan dani ugu jirin qodobka saddexaad la tatahaddath an nafsika amama an-nasi kathiran dadka hortooda naftaada wax badan ha ka sheekaynin oo ha ka sheegin sababtu waxay tahay haday arrinkaasi uu dhaco dadku waxay ku arkayaan qof naftiisu ay cajab gelisay waxay ku arkayaan qof isla weyn waxay ku arkayaan qof kibraaniya qodobka afraad la tukthiri shakwa amama an-nas dadka hortooda in badan ha ka cabanin dhibaatada ku haysata in badan dadka ha uga waramin hadii arrinkaasi uu dhaco waxa dhacaysa dadka agtooda inaad noqoto qof kulliita bila awood ah aan ka gudbi karin caqabadaha nolosha ee la soo darsaya ninkii shaacirka ahay wuxuu leeyahay la tashkul an-nas jurhan anta saahibuhu la yu'limu al-jurh illa man bihi alamu shakwaka lin-nas ya ibn an-nas manqasatun habadin cabashada dadka aad u cabanayso waayo qof waliba dhibaata haysata dadka hadii aad in badan u cabato waxa arrinkaasi uu ku tusinayaa dhimanaansho iyo naqsi ha u cabanin dadka u cabo ilaahay subhanahu wa ta'ala qodobka shanaad ee ku jecelaysiinaya dadka aad ku dhex nooshahay waa in aad danayso nadaafadaada jirkaagu inuu nadiif noqdo maryahaagu inay nadiif noqdaan oo quruxsanaadaan in cadarka iyo iscarfinta aad ku dadaasho timahaaga cidiyahaaga ilkahaaga iyo wixii lamida inaad nadaafadooda aad ka shaqayso